Jack Ma waxa uu xareystay jaamacadda 2 jeer waana laga diiday codsigiisa. Waxa uu shaqo raadsaday 30 mar waana uu waayay wax shaqo ah. Wuxuu rabay inuu ku biiro askarta sidoo kale waa laga diiday. Ninkan albaab walba uu gargaraaco wax ka furo wuu waayay balse marnaba isma uusan dhiibin oo wuxuu sii waday dadaalkiisa. Maanta waxaan ka hadlaynaa qisada guusha ee ninka ugu taajirsan dalka China, Jack Ma. Haddii aad xiisaynayso muuqaalada noocan oo kale ah, subscribe saar channelka oo rukumo si aad ula socoto qisooyin cajiib ah iyo muuqaalo kaleba. 1964 Jack Ma waxa uu ku dhashay magaalada Hangzhou ee dalka China. Wuxuu ka dhashay qoys danyar ah oo ka kooban 3 wiil, wuxuuna ahaa mid jir ahaan jab yar. Waxa uu ku dhacay imtixaanka dugsiga hoose 2 mar. Markii uu ugu dambeyn ka qalin jabiyay dugsiga sare, waxa uu ku dhacay imtixaanka qabuulka jaamacadda 3 mar. Waxa uu sidoo kale dalab u gudbistay uuna xareystay jaamacadda Harvard ee Mareykanka ku taala 10 mar, balse maxaa dhacay? Hal mar xataa ma aysan aqbalin Harvard. Dhibaatooyinkan waa kuwa uu kala kulmay dhanka waxbarashada. Haddana waxaan u gudbaynaa caqabadaha ka soo wajahay dhanka shaqo raadinta. Inta uu jaamacadda dhiganayay iyo markuu dhameeyay jaamacaddaba, Jack waxa uu marar badan isku dayay inuu shaqo helo. Isku day walbana kuma uusan guuleysan jirin, asagoo laga soo xiray albaab kasta uu garaaco. Shirkadda cuntada ee KFC markii ay soo gaartay dalka China, waxaa codsi shaqo ah u gudbiyay 24 qof uu ka mid ahaa Jack Ma. 23 kale waa la qaatay marka laga reebo Jack Ma. 5 qof oo uu ka mid ahaa Jack Ma ayaa waxay gudbisteen shaqo ciidannimo ah. Dhammaantoodna waa la qaatay marka laga reebo Jack Ma. Haddii uu qof kale ku jiri lahaa booska Jack Ma, waxa uu isdhihi lahaa ma ahid qof nasiib fiican oo waad nasiib xun tahay, ama waxa uu eedda dusha ka saari lahaa dowladda. Jack Ma uusan seexanin intuu gurigiisii tagay, mana ka quusan nolosha ee waxa uu horay u waday dadaalkiisa. Dhibaatooyin badan uu soo maray kadib, sanadkii 1995 Jack Ma waxa uu suurta gashay inuu u safro dalka Mareykanka. Waqtigan Jack waxa uu aad u fahmay kombiyuutarka iyo internetka oo ay aad ugu yaraayeen dalkiisa, waxaana kaliya kombiyuutar ama internet heli karay xilligaas kaliya dadka maalqabeennada ah ama madaxda ah. Jack waxa uu gudagalay inuu baaritaano badan ka sameeyo internetka. Maalin maalmaha ka mid ah asagoo internetka wax ka baaraya, ayuu wuxuu raadiyay xogo ama warbixinno ku saabsan ereyga beer oo ah nooc ka mid ah khamrada. Wuxuuna helay warbixinno badan oo ku qornaa luuqado kala duwan, balse arrinka la yaabka leh ayaa ahaa inuusan helin haba yaraatee hal macluumo oo luuqadiisa Chinese-ka ah ku qorneed oo ku saabsan beerka. Jack arrintan ayuu aad ula yaabay, wayna la noqon weysay mid macquul ah. Dal dhan oo intaas la eg oo shacab 1 bilyan ah ay ku nool yihiin, oo aan hal macluumo ah xataa internetka lagaga heli karin luuqadiisa. Kadib waxa uu raadiyay waxyaabo kale oo aan beer ahayn si uu macluumo ugu helo luuqadiisa, balse ma uusan helin sidoo kale wax luuqadiisa Chinese-ka ku qoran. Kadib Jack Ma waxa uu ka shaqaysiiyay maskaxdiisa asagoo kaashanaya asxaabtiisa. Waxay sameeyeen website lagu qoro warbixinno luuqadda Chinese-ka ah. Intaas kadib waxaa la soo xiriiray oo fariimo u soo qoray dad badan oo raba inay wax ka ogaadaan website-kiisa iyo asagaba. Kadib Jack Ma waxa uu ogaaday inuu internetka yahay meel wax badan laga faa'iidi karo. Kadib waxaa ku soo dhacday fikrad cajiib ah oo ahayd inuu sameeyo website la tartami kara website-ka eBay iyo website-yo kale oo ku yaala Mareykanka. Sanadkii 1995 Jack Ma asagoo kaashanaya xaaskiisa iyo asxaabtiisa waxay isku dareen lacag gaaraysa $20,000, waxayna sameeyeen shirkad internetka ku shaqaysa oo shaqadeeda ay tahay inay website-yo u sameyso shirkadaha caadiga ah. Waxayna u bixiyeen magaca ah China Yellow Pages.
muddo 3 sano ah kadib dakhliga ka soo xarooday shirkaddaas wuxuu noqday $800,000. muddo kadib Jack Ma wuxuu go'aansaday inuu shirkaddiisa magaca ka bedelo, wuxuuna doortay magaca Alibaba. wuxuuna xafiiskiisa ka dhigtay gurigiisa. isla sanadkii uu shirkadda Alibaba aas-aasay, waxa uu helay lacag maalgelin ah oo gaaraysa $5 milyan. sanadkii 2000 waxa uu helay maalgelin kale oo ah $20 milyan. Jack Ma sidaas ayuu ku sii waday horumarinta shirkaddiisa, waxa ayna ugu dambeyntii noqotay shirkaddiisa suuq weyn oo kulmiya shirkado badan oo ay wax ku kala iibsadaan qaab online ah. September 2014 waxaa la soo saaray warbixin ku saabsan sare u kicidda qiimaha shirkadda Alibaba. imise ayuu gaaray ayaad is leedahay qiimaha shirkadda Alibaba? wuxuu gaaray qiimaha shirkadda Alibaba $153 bilyan. shirkadda Alibaba maanta waa shirkad ballaaran oo ay hoos imaadaan 9 shirkadood. maalinka ugu weyn taariikhda Alibaba waa maalinka doobabka ee Shiinaha oo ah cagsiga maalinka jacaylka ama maalinka Valentine-ka. sanadkii 2017 website-ka Alibaba waxaa laga iibsaday badeecooyin badan oo ay qiimo ahaan gaartay $25 bilyan kaliya 24 saacadood gudahooda. lacagtaas waxay noqon kartaa miisaaniyad dowladeed oo dhan. hal maalin gudaheeda ayayna ku heshay lacagtaas shirkadda Alibaba. sidaas darteed maalinkaas waa maalin taariikhi u ah shirkadda Alibaba. marka Jack Ma oo ahaa noloshiisii bilowgeeda faqiir, soona maray caqabado iyo guuldarooyin badan, hadda halkee ayuu gaarsiisan yahay heerka noloshiisa? wuxuu noqday taajir iyo bilyaneer ka mid ah bilyaneerada adduunka, wuxuuna haystaa lacag dhan $41.4 bilyan. waa ninka ugu taajirsan dalka China. waxa uu maalqabeennada adduunka kaga jiraa kaalinta 17aad. 15 sano ka hor wuxuu haystay kaliya $60,000. maantana waa ninka ugu lacagta badan dalka China. waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday qisadan oo ay kuu noqon doonto dhiirigelin. si walba ay nolosha u adkaato iyo caqabad walba oo timaada, marnaba ma aha in la quusto oo la isdhiibo. had iyo jeerna qofkii dadaalo, guul ayaa u dambayn doonta. waa ku mahadsan tahay dhagaysigaaga iyo daawashadaada wanaagsan. haddii aad ka heshay qisadan iyo muuqaalka, like saar muuqaalka, siina share garee. sidoo kale subscribe saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.